xilligu waa habeen saacadu waxay maraysaa 6 saac habeenimo waxa jira qabow daran iyo roob waana goob duur cidla ah Cabdicasiis iyo Xaawo waa dad dhalinyaro ah kana tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed da'doodu waxay u dhaxaysaa 20 ilaa 25 sano haddaba daawade waa maxay sababta halkan u joogaan madantooda gaarka ah mise waa danta guud ee qaranka bal hay nooga jawaabaan halkan waxa u joogaa waxay tahay difaaca dalkiga waxaan u joogaa danta guud ee qaranka si aan u difaaco dalkiga dadkayga iyo diintii intaba ma ahan dantayda gaarka waa danta dalkayga iyo dadkayga haddaba Cabdicasiis iyo Xaawo miyaysan lahayn xirfad kale oo ay ku shaqaystaan waana sidee heerkooda waxbarasho waxaan ka soo baxay jaamacadda Capital University waxaan bartay IT-ga waxaan aqaan si loogu shaqeeyo software-ka iyo waxyaabaha la midka waxaan gaarsiisanahay heer aqooneed ilaa dugsi sare waxaan saka doorbiday inaan dadkayga iyo dalkayga difaaco maxaa ku dhaliyay inay ku biiraan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa igu dhaliyay markaan arkay al-shabaab oo dhibaateynaya hooyooyinka iyo carruurta Soomaaliyeed inaan dalkayga iyo dadkayga ka difaaco sababta ugu biiray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay tahay kadib markii aan arkay dhibaatada ay nagu hayaan al-shabaabka ay ku hayaan ummadda Soomaaliyeed si aan ugu difaaco intii ay ku jireen ciidanka farxad iyo murugo maxay kala kulmeen waan arkay farxad iyo murugo intaba waxaan farxad dareemaa marka aan qabsano meelo kale gobollo aan qabsano waan farxaa waan murugoodaa marka aan waayo wiilasha walaalaheeya oo garabkayga oo shahiiday iyagoo dalkooda iyo dadkooda difaacaya farxad waxaan dareemaa markaan goob cusub aan ka saaro cadowga murugana waxaan dareemaa markii aan xasuusto asxaabteedii hore ee shahiiday waa maxay hadafka ugu dambeeya ay ka leeyihiin ka mid ahaanshaha ciidamada hadafka aan ka leeyahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa weeye in aan ku soo celiyo magacii hore aan u leeyahay ahaa libaaxyada Afrika kana adkaan cadowga hadafka aan ka leeyahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu yahay in aan ka saaro cadowga al-shabaab si aan ugu soo celiyo magacooda hore ee ahaa libaaxyada geeska Afrika iyadoo intaasi ay jirto inta badan bulshadeena Soomaaliyeed ayaa si nabad ah u dhex jiifa guryahooda taabadalkeeda waxaa jira dhalinyaro Soomaaliyeed oo iyagu naftooda u huraya difaaca dalka iyo dadka iyo diinta isla markaana ku dhex jira nolosha caynkaana si ay u suuro geliyaan nabadda aynu ku jiifno guryaheena bal aan isweydiino su'aalahan miyaysan inaga mudnayn duco taageero iyo garab istaag joogta miyaysan inaga mudnayn inaan ka difaacno cid walba oo waxyeelaysa sharafkooda miyaysan inaga mudnayn kala saaridda kan suurad xumaynaya magaca ciidankeena iyo kuwa noo huraya waxa noolaha ugu qaalisan oo ah dhiigooda haddaba muwaadin adigu iska bilow oo aan ugu hiilino sida ay noogu hiiliyeen